shacabka ku dhaqan xaafadda Daami ee magaalada Hargeysa ayaa maanta sameeyay isu soo bax ay ku taageerayaan doodii uu baarlamaanka dalka Ingiriisku ka yeeshay aqoonsiga Somaliland iyadoo ay ka qayb galeen dibadbaxa maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge xildhibaan Barkhad Jaamac Batuul iyo qaar ka mid ah madax dhaqameedka Somaliland shacabkan oo sitay sawirka xildhibaan Gavin Williamson oo isagu ahaa ninkii dooda aqoonsiga horgeeyay baarlamaanka UK iyo calanka Somaliland iyo ka dalka UK maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dibadbaxani uu qoysgoynayo dadka Somaliland ku sheega qabiil qura isagoo sidoo kale xusay in xiriirka taariikheed ee Somaliland iyo Ingiriiska ka dhaxeeya uu dhiman doono haddii aanu Ingiriisku noqon dalka ugu horeeya ee Somaliland aqoonsada geesta kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay xildhibaan Barkhad Jaamac Batuul isagoo u mahad celiyay xildhibaan Gavin Williamson oo isagu hormuud u ahaa doodii ay baarlamaanka Ingiriisku ka yeesheen aqoonsiga Somaliland oo in badan dulmaneed dhowr iyo 30 sano go'isku taageeda oo adduunweynaha dhan ay dhagaan faraha ay ka gashadeen in maanta Ilaahay idoo soo jeediyay oo caalamku ay arkeen xaqiiqada iyo dhabtu waxay tahay Somaliland inay ahayd dal jira oo Soomaaliya oo jirin iyagu jira Somaliland inay ahayd dad walaaltinimada jecel Soomaaliya meel walba ay degan tahayba oo calankoodii intay qaadeen iyo go'isku markii ay qaateen 26 Juun 1960 inay ku ay la tageen xamar iyagoo markaa baadi doonaya shanta Soomaaliyeed waxay noo tahay farxad weyn maadaama aynu halkan shucuurteena ku muujinayno qadiyadda go'isku Somaliland oo aynu maanta ku taageerayno xildhibaan Gavin oo baarlamaanka Ingiriiska horgeeyay qadiyadda Somaliland si looga doodo اعتراف يا أفكو ينقصها هي وتاجية هيبة وتاجية هي قبيس جيب نايو إنجليز برضو بحي كبقوا له وتجينا إذا كانوا يسبرانون لقى فكرين وحيبان وقت يحنوكي أنا وبعنا نبكي وقتين وبودين وبسينا ذا كباينه حمر لو بقوا له برلمان كيوكي آديات برقم هذا لله وناقاب في عنا أي سميين توضع اعتراف Somaliland أي مدة بدل سعودي دولتنا عن مشاركة إن هي Soomaaliyana ورورته واحد يجي شيء إن أنا جاي لها هيبان اعترافي حاسب لمدن موناك سنة نو قلاده هيبدا إلى هاي نسيه وعن مركه هراء أنا وأفكح اللي ما ندى Somaliland كو هذا يا أمبرتن وقبل هذا يا برلمان UK وحانا سيجارة وقوم هذا قيام وحنبلينا يا صاحبك جافن ويليام ورمتي كارين موقتك قاتي دودي كدعدي برلمان كإنجليز وحولنا هي آدي بعض محصلتها هاي أديك اللي بعدها كلا دريك وناكسن وهي الدولة نبدا الصومالية شرف بي ما أنت حافظنا وتهاي إنه نقولنا بالشدي كواد أيوة بلدكتا جوش الصومالي وحنو ما هدنا يا مرة بعد أبابك حافظك مولا أنت أمريكا كيما دو Somaliland حافظنا إنه وحي كدكتاي لانديرها Somaliland صباح ما تندقى Somaliland نقول لانديرها صباح كوبي لا تكون عضي أيدي دكتور مثلا إنه sababta Somaliland loo siisay waxa weeyaan in badan baan dunida kala baaqdan nabeeyada اعتراafkii kadibna اعتراafku noo soo ragci waayay neeqatalayaal baan loo arkay idinkaanu shaaridi ka dhigna اعتراafka soo shamiyo soo shamino gaalada kama soo ragcin sababta sida ballankeenu waa inaynu awinada اعتراafka u soo shamino kuwa Somaliland qabiilka ku sheega
ay yidhaahdaa qolo gaara baa somalilan leh qolo gaara baa somalilan dhisatay kuwaasaa maanta u kuusgoyseen taariikhna waa qorteen oo waxaa ku qorteen maanta inaad tihiin shacbigii ugu horreeyey ee somalilan ka mid ah ee muujiyey dareenkooda ku aadan in somalilan ay noqoto qaran madax bannaan oo adduunka laga aqoonsan yahay iyo in calankaa sharfan ee tawxiidku ku qoran yahay inuu noqdo ka sarreeya mar kasta adduunka insha allahu tacaala waan idinka mahadnaqayaa arrintaa wanaagsan ee samayseen ee tusaalaha ku tihiin somalilan dadkeeda iyo shacabkeeda ilaashanaya curadada daami ku dhashay ee ku koray baa ilaashanaya haddii ilaahay aqoonsi ina siiyo oo horumar badan alla keenana dhari waxaa la yidhi ninkii u dhow ee ag joogaan lafta kala baxee reer daami waa ku faa'iidayaan oo ku khasaari maayaan oo horumar bay ku helayaan insha allahu tacaala dadka reer somalilandna markii doorashada la galay iyaguna waxay soo afjareen hadalkii la odhan jiray reer daami kootaha loogu xidho kursi ayay soo afjareen si gobonnimo leh oo karaamo leh oo walaalnimo leh oo muujinaysa inay idin jecel yihiin oo ka mid tihiin ayay walaalkay barxajaana batuun ku doorteen oo codkii ugu badnaa maanta uu golaha baarlamaanka ku fadhiya waxay daaran tahay inaynu u mahadnaqno dowladda ingiriiska baarlamaankeeda oo muujiyey oo gartay markii ugu horreysay inay si adag uga hadlaan taariikhda inaga dhaxaysa inaga iyo ingiriiska taariikh dhiman doonta haddii ingiriisku uu aqoonsan waayo somalilan lama jeclin in taariikhdaasi dhimato waxaanu rabnaa ingiriisku inuu noqdo waddanka ugu horreeya ee somalilan aqoonsada ka labaad inuu noqdo ma doonayno hadduu ka labaad noqdo taariikh inaga dhaxaysay baan jirin taariikhda inaga dhaxaysaa ku khasbaysa arrinkeena inay ka hadlaan ooy weliba halkaa uga sii dhowaadaan oo weliba ay aqoonsiga ku dhawaaqaan ayay faraysaa taariikhda inaga dhaxaysaa faraysaa maanta calankooda ayaan lulaynaa hadday ina aqoonsadaan oo dadaalka sii wadaan calankooda waa sii lulaynaa haddiise ay taariikhda qiri waayaan calankooda kuma khasbin inaan sii lullo maanta meel fiican bay marinayaan halkaa inay uga sii dhowaadaan baan rabnaa halkaa inay uga sii dhowaadaan ayaan rabnaa aqoonsiga somalilan waxaynu qabsannay baa keenaya 30 sannadood inaynu jirnay baa keenaysa inaynu dadaalnay baa keenaysa doorashooyinkiinu qabanaa keenaya nabadaynu ku noolay baa keenaysa cashuurtaynu urursannay waxay inoo goyso aynu ku qabanayno ayaa aqoonsiga keenaysa aqoonsigu wuu imanayaae nimankanaynu taariikhda wanaagna reer ingiriis taariikhda miyay qayb ka sii ahaanayaan mise kama sii ahaanayaan waa su-aasha hortooda taalla waanu la jecelahay inay saaxiibkaya sii ahaadaan inay taariikhdaa rumeeyaan inay aqoonsadaan somalilan laakiin way ku raagtay dadkana way sugeen oo way ku samreen war aqoonsigu ha yimaado